kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walbo aad ku sugan tihiin kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhabka hadal qaybtan haduura beedmo waxaynu ku eegi doonaa ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika oo lagu wado inuu safro ku tago dalal lagu tuhunsan yahay inay qayb ka ahaayeen dagaalada ka socda dalka Ethiopia sidoo kale qaybtan waxaynu ku eegi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo khadka telefoonka kula hadlay qayb kamid ah hogaamiyaasha bariga Afrika qaybtan waxay la qayb qaadan doonaa wariye nuur soo dhawow ما صدق هذا ما صدق هدراوي هدراوي داودياشنا وسلامنا مeel kasto ay joogan salaamu alaykum baan leenahay taariikhdu waa 9ka bisha December ee sanada 2021 inta hadii aan ka gudbo qodobka hore ee aad ka dhawaajisay hadii aan bal ka horeyno ergeyga gaarka ah ee hadraawi u qaabilsan Mareykanka geeska Afrika oo lagu magacaabo Jeffrey Feltman waxa uu maaragtay la sheegay ama in uu maaragtay waxa la sheegay inuu booqan doono maanta gelinka dambe wadamo markaas iyagu ay kamid tahay wadanka Imaaraadka Carabta wadanka Turkiga iyo sidoo kale wadanka Masar ayuu maaragtay booqasho bilaabi doona in saddex wadan oo isu maro madaxda kala duwan ee halkaasna markaas uu kulamo la yeesho waxa la sheegay macnaha warkan arbacadii aynu ka soo gudubnay ayuu sheegay maaragtay shalay ahayd ayuu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka nin lagu magacaabo Ned Price oo maaragtay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isoo sheegay markaas in uu Feltman booqan doono wadamadaasi Imaaraadka Carabta Turkiga iyo Masar saddexdan wadan waxa la og yahay ama la rumaysan yahay in laba kamid ay xoog ugu lug lahaayeen dagaalka waqooyiga Ethiopia iyagoo caawinaya dawladda dhexe ee Ethiopia oo markaas Imaaraadka iyo Turkiga waxa ay xoog gacan weyn u siinayeen dawladda sida looga adkaan lahaa kooxaha fallaagada ah ee TPLF iyo OLA waxa la sheegay isagoo ka hadlaya shir jiraa'id oo maaragtay Price uu ku sheegay in ergegani uu ku booqan doono maaragtay wadamadaasi waxaana la sheegay inuu la kulmi doono maaragtay madaxda wadamadaasi kala duwan isla markaasina waxa la sheegay inuu kala hadli doono sidii nabadgeliyo loogu raadin lahaa xaaladda wadanka Ethiopia isla markaasina loo joojin lahaa dagaalka ka socda wadanka Ethiopia waqooyigiisa waxa la sheegay in booqashada ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika uu la xiriiro sidii wadamadaas uga hadli lahaa in Ethiopia xaaladdeeda nabadgeliyo lagu soo dabaalo in dagaalka la joojiyo in markaasi wada hadal la galo waxa uu sheegay baa la yiri in uu rumaysan yahay marnaba Mareykanku in aan arinta Ethiopia ka socota aan lagu xalin doonin ama xalka kama dambeystii marna oosan ku jirin military iyo qori xaaladii oosan ku jirin sida daraadeed xalka kama dambaysta nabad loogu soo dabaali karo Ethiopia in ay tahay sidii wada hadal loo sameyn lahaa xabad joojina loo sameyn lahaa kadibna loo wada hadli lahaa markaas la isku afgaran lahaa marka wadamadan labada wadan waxa lagu tumeeyay inay dawladda dhexe ay xiriir toos la leeyihiin Ethiopia isla markaasina ay iyagu markaasi taageero military ay siinayeen marka waxa la rajeeyay la filayaa ama dad badan ay oo maaragtay siyaasadda u dhuun daloola ay markaasi tilmaamayaan in ergeygan gaarka ah ee qaaradda Afrika ama idhaahdo geeska Afrika u qaabilsan Mareykanku in uu kala hadli doono Turkiga iyo Imaaraadka Carabta sidii loo joojin lahaa hubka iyo saanada military ee ay ku taageerayaan dawladda Ethiopia si loogu baabi'iyo fallaagooyinka markaasi dawladda soo horjeeda geesta kale Masar ayuu booqanayaa baa la yiri Masar iyo Ethiopia way ognahay xurguf siyaasadeed oo dhinaca biyaha webiga Nile markaas la xiriira ayaa ka dhaxaysa sidoo kalena waxa Masar lafteeda eedan la soo jeediyay dhawaan ay tilmaamayeen in Masar ay taageero military siiso kooxda fallaagada ah ee TPLF ee Tigreega iyadoo markaas u isticmaalaysa in ay meesha ka saarto ama ay riddo dawladda dhexe ee Ethiopia oo markaas ay arrimo siyaasadeed oo waliba arrimaha biyaha webiga iyo dhaamka Ethiopia ay dhawaan halkaas ka sameysay ay isku hayaan marka waxa la leeyahay maadaama labadan wadan ee dawladda dhexe taageero Mareykanku si toos uga hadlayo in ay kaalmada military joojiyaan Masar iyadana qayb bay ka noqonaysaa maadaama geesta kale ay ka soo jeedo in markaasi
uu iyadana tago ergeygu oo uu kala hadlo sidii iyaduna ay lugta ay ku leedahay dhibaatada ka socota Ethiopia ay u yareyn leedahay ama ay u joojin lahayd marka booqashadaasi ayuu maanta Khamiista uga bilaaban doonta wadamadaas Imaaraadka Carabta Turkiga iyo sidoo kale Masar waan ogaan doonaa dabcan wixii ka soo baxay laakiin xogaha hordhaca sida afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu sheegayba arrimahaasi ayuu u tagi doonaa ergeygu dalalkaasi kala duwan maaragtay Imaaraadka Carabta Turkiga iyo sidoo kale wadanka Masar wagaag Nuur aad u mahadsan tahay kadib markuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sheegay in dagaalka wajigiisa koowaad uu soo dhamaaday uu khadka telefoonka kula hadlay xogayaha guud ee qaramada midowga Antonio Guterres iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga Afrika maxay ka wada hadleen faahfaahin rasmi ah lagama hayo arintaas kaliya waxaan ognahay sida ra'iisul wasaaruhu boggiisa rasmiga ah ku Twitter ku soo qoray in uu khadka telefoonka oo xiriir kula sameeyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga Afrika isla markaasina ma uusan faahfaahin intaasi ka baxsan markaasi uusan bixinin ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in labada hogaamiye uu markaasi xogayaha qaramada midoobay iyo gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed uu telefoonka kula xiriiray isla markaasina wicitaankoodaas ama wada hadalkoodaasi uu guul ku soo dhamaaday sida uu hadalka uu markaasi ra'iisul wasaaruhu dhigay waxa guusha ku soo dhamaaday marka muusan sheegin iyo qodobada laga wada hadlay ma waxa laga wada hadlay sidii qaramada midoobay ay Afrika xubin muhiim u yeelanayso ra'iisul wasaaruhu ilaa shalayba uu hadal hayay oo lahaa waa in qaaradda Afrika ay yeelato xubin joogto ah oo markaasi shanta xubnood ee joogtada ah ee qaramada midoobay waa in Afrika ay qaybteedii ay hesho maadaama hadda ayna Afrika waxba ayna ku lahayn wadamo kale oo maaragtay Shiinaha iyo reer galbeedka u badani ay markaasi iyagu ay leeyihiin shanta xubnood ee joogtada la yiraahdo marka sidii Afrika ay u yeelan lahayd ma arintaas uu daarana kulan maaragtay wada hadalkoodu mise wuxuu daarana arrimaha Ethiopia ka socda faahfaahin lagama bixin ra'iisul wasaaruhu wax faahfaahin intaas dheer kama bixinin laakiin dadka qaar waxay leeyihiin maadaama ra'iisul wasaaruhu shalay uu arintaas soo bandhigay oo uu shalayba uu lahaa waa in maaragtay qaaradda Afrika waa inay yeelato xubin joogto ah oo qaramada midoobay maaragtay kamida oo shanta xubnood ee joogtada ah oo hadda aan midna ku lahayn haddaan Afrika nahay waa inaan mid ka naga helno maadaama shalay uu sidaa u hadlay ma arintiibu kala hadlay mise arin kale abina waxaad moodaa hadda wuxuu ciyaarayaa si loo iloobo ama wajigii dagaalka ee ku jiray Ethiopia maadaama caalamku Ethiopia ku mashquulsana Ethiopia laga wada hadlay xaaladeeda mar walba maaragtay laga hadlay Mareykanku inta ku celcelinayo safaaradii Mareykanka ee Addis Ababa iyo Eritrea ku taalay ay mar walba xaaladii Ethiopia ay wajhun maaragtay ay sameynayso ay mar walba leedahay muwaadiniintu waa inay isaga baxaan Ethiopia mar walba ay leedahay Eritrea maaragtay ku soo xad gudbaysa Ethiopia gudeed maadaama oo sida focuskii caalamku u hayo Ethiopia waxaad moodaa ra'iisul wasaaruhu markii uu ka soo laabtay shalay dagaalka uu yiri xafiiskan ku laabanaya waxa uu markiiba dhaqaajiyay mashiin kale oo dhinaca horumarka qaaradda Afrika markaasi ka hadlaya waxaad moodaa arrimihii gudaha Ethiopia ka socdayba in uu banaanka u raray oo markaasi siyaasadda uu isticmaalayo inuu Africa leader u noqdo Africa inuu u hadlo xuquuqaha Afrika qaramada midoobay kaga maqan inuu maaragtay uu raadiyo in maaragtay wadamada Afrika sidii ay wada shaqayn dhow yeelan lahaayeen uu ka shaqeeyo marka waxa la rumaysan yahay maadaama shalay olole noocaas uu bilaabay in uu arintii iyada ahayd kala hadlay maadaama labada nin midna uu Afrika midowga Afrika uu xukumo midna uu qaramadii midoobay xukumo waxa dad badan ay suuraysanayaan ama la tilmaamaya in ra'iisul wasaaruhu isagoo arintaas daba socda uu halkaas diirada markaas saarayo discussion-kan ama wada hadalkana uu maaragtay la xiriiray sidii ay Afrika u heli lahayd xubinkeedii joogtada ah ee qaramada midoobay ay ku yeelan lahayd isla markaasina maanta ay tahay maalintii Afrika ay heli lahayd xubnaha joogtada ee qaramada midoobay mid kamid ah arintaas la rajaynaya laakiin wax faahfaahina lagama hayo ma taasoo kala hadlay marka sida la leeyahay waa xogo markaas la faaleynayo ama la saadaalinayo ma xog rasmi ah oo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay inay arinta ka wada hadleen kaliya isagu wuxuu sheegay in uu Antonio Guterres iyo Muuse Faki Maxamed uu telefoonka kula hadlay isla markaasina wada hadalkoodii ama discussion-koodii uu guul ku soo dhamaaday sidoo hadalka u dhigay marka intaas uu isagana uu ka sheegay marka laakiin faahfaahin intaas ka badan lagama hayo waxa uu kala hadlay waxa Nuur aad u mahadsan tahay
marka aynu eegno sida hadda wax u socdaan iyo dadaalada uu sameeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee ku aadan xiriirada uu la sameeyo markaad fiiriso xogaha guud ee qaramada midoobay iyo sidoo kale gudoomiyaha midowga Afrika ma kula tahay gabi ahaanba in meesha ka baxday cabsidii laga qabay in kooxda TPLF ay qabsato caasimadda Addis Ababa dowladda waxaan dhaways ka mujaamalo marka la fiiriyo kooxda TPLF hadda Addis Ababa inay qabsato wax rajo ah oo badan laga ma qabo boqolkiiba hal baa la oran karaa sababtoo kooxda TPLF inay de wax kala yimaado waa gooni laakiin hadda maanta oo aan hadlayna sida xaaladdu tahay uma badna ama maaragtay wax cabsi oo badan laga qabo in ay Addis Ababa yimaadaan toddobaadkan horaantiisi waa laga qabay laakiin ra'iisul wasaare markii uu baxay waa kii TPLF ay isaga wada baxday gobolka Axmaarada intii badnayd iyo gobolka Canfarta marka shalay ra'iisul wasaare markii soo laabanayay waa kii sheegayay ama bulshada u sheegay in dagaalkii uu wajigiisa koobaad guul ku soo dhamaaday isla markaasina meelo yar yar oo kooban TPLF wali ay ku arsan yihiin laga xoreyn meelahaasna ciidamadu ay ku sii ruqansanayaan si looga xoreeyo xalay oo dawladda dhexe ay war soo saartay iyadana waxay sheegtay goobihii uu ra'iisul wasaaruhu sheegay meelo kamid ah oo ilaa 2 iyo 3 goobooda in laga xoreeyay kooxda TPLF marka waxay u badan tahay kooxda TPLF ama tactical ha isticmaasho ama koox jabtay oo laga adkaaday ha noqoto rajo hadda inay Addis Ababa timaada meesha waa ka sii baxaysa sababtoo ah waxay dib ugu noqonayaan oo maaragtay ay dib u gurasho u sameeyeen dhinacaas iyo gobolkoodii oo maaragtay 900 iyo maaragtay dhowr kiiloomitir u jira caasimadda waddanka Ethiopia marka 900 oo kiiloomitir iyo ka badan koox joogta la cabsi loogama qabo inay caasimadda ay qabsadaan marka ciidamaduna inta hadda ra'iisul wasaaruhu howlgalka hogaaminayay wajh ka duwan wajigii hore TPLF ta markaas loo muujinay ama looga dagaalamay ayay muujiyeen oo si dhab in loola dagaalamay moodaa ama dhinaca cirka ha noqoto ama dhinaca dhulka ha noqotay culays badan baa la saaray marka sidaa daraadeed waa xaqiiq waa ka baxday meesha in badan oo kamid ah cabsidii laga qabay in Tigray ay yimaadaan caasimadda nuuraada ma santahay ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu sheegay in uu khadka telefoonka kula xiriiray qaar kamid ah madaxweynayaasha bariga Afrika maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaaruhu tan lafteeda faahfaahin badan kama bixin isaga soo dhiga warka ama warka waa war isaga maaragtay laga soo xiganay oo maaragtay isagu u baahiyay way waxa uu sheegay in Ethiopia ay sii wadi doonto xiriirka dhow ee ay la leedahay wadamada dariska iyo wadamada qaaradda Afrika in oo maaragtay Ethiopia sii wadi doonto wada shaqeynta iyo maaragtay isgarabsiga iyo iskaashiga ka dhaxeeya dhinac walba leh ee ka dhaxeeya wadamada Afrika waxa uu sheegay iyadoo taa laga duulayo in ra'iisul wasaaruhu xalay uu khadka telefoonka kula xiriiray hogaamiyaasha wadamada Eritrea, Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo Uganda iyo waliba South Sudan in waa Eritrea, Djibouti, Soomaaliya, Kenya, Uganda iyo maaragtay waa 6 wadan markaasi hogaamiyaashooda ama madaxweynayaashooda 6 wadan ayuu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu khadka telefoonka xalay uu kula xiriiray isla markaasina ay ka wada hadleen sidii maaragtay iskaashiga iyo wada shaqeynta iyo maaragtay wada noolaanshaha bulshada ee Afrika ay markaasi ay hore ugu sii socon lahayd marka totally laguma soo hadal qaadin arrimihii dagaalka iyo waxyaabihii la xiriiray laguma sukumo ra'iisul wasaaruhu waxaad moodaa tweetska ama twitterada uu hadda 24 saac ugu dambeeyay tan iyo intii uu sheegay inuu dagaal ka soo laabanayo uu qoray gabi ahaanba wuxuu ka ilaaliyay wax ku saabsan arrimaha dagaalka Ethiopia ka socda guud ahaan wuxuu kaga hadlayaa Afrika iyo sidii la isku kaashan lahaa iyo sidii maaragtay Afrikaanku ay hal mid uga noqon lahaayeen isku kaashan lahaayeen iyo sidii Afrika ay u heli lahayd xubinta joogtada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku yeeran lahayd marka inahaas u sheegay wanaag daawadayaal nuur aad ayuu mahadsan yahay qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa inta dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh